السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran channelka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta waa Khamiis 12 bisha 9 sanadka 2024. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago ninkii Donald Trump ahaa oo guul sheeganaya laakiin asaga iyo Kamala Harris oo shalay mar kale si lama filaana u kulmay hadalka uu ku yiri oo u muuqday in laga adkaaday in uu qiranayo maxay ahayd sidoo kalena maxay tahay eedeyntan uu u soo jeedinayo in wariyaashii ama TV-gii doodii habeen hore qabtay iyo sidoo kalena qaar kamid ah dadka waxyaabaha khiyaaliga faafiyo oo Trump taageersan oo dhahaya dhaga u xirnaa Kamala Harris ayaa waxa ay ahaayeenba earbuds oo halkaasi ayaa jawaabaha su'aalahooda looga sheegayay sidoo kalena waxaan rabaa inaan idin la wadaago taageeridii fanaanada caanka ee Taylor Swift habeen hore markii doodu ay dhamaatay ay taageertay Kamala Harris iyo Tim Walz saameynta ay yeelatay oo durbaba muuqata iyo sidoo kalena inta qof ee TV-yada ka daawatay doodii habeen hore oo la shaaciyay ayaan rabaa inaan arrimahaasi oo idin la wadaago balse marka hore aan ku hormaro doodii habeen hore waxa ay u muuqataa oo dadkuba inta badan ay sheegayaan in Kamala Harris ay ku guuleystay u muuqataa maahan ay ku guuleysatay iraade marka ninkii Trump ahaa qofka guuleystay Kamala Harris horta iyadoo habeenkii ay doodu dhamaatay kadib ma aysan hadlin warbaahin laakiin ninkii Trump ahaa idaacad kasta ayuu taagan yahay wuxuu leeyahay aniga ayaa guuleystay cod aqlabiyada ayaan ku guuleystay 90% 80% 77% sidaas ay aftiyada kala duwan sheegayaan haddii aad aragto laba qof oo inta isdagaashay mid kamid ah la celcelinayo midna iska aamusan yahay meel iska taagan yahay ama iska fadhiyo qofkaas la celcelinaya ama waa fulay ama waa laga adkaaday labadaas midood waaye marka nin daad qaaday xunba ogsay marka ninkii Trump ahaa marka iyadoo ay muuqato in laga adkaado xitaa Republicaankii siyaasiyiintoodii ay qirayaan ayaa haddana meel walba waxa uu la taagan yahay aniga ayaa guuleystay arrintii shalay waxa wax laga weydiiyay Kamala Harris waxay dalbatay dood labaad ee ka waran marka wuxuu yiri dagaalkan UFC la yiraahdo oo feerka oo la isdagaalo wuxuu yiri ninka feeryahanka marka laga guuleysto waa uu qayliyaa waxana uu dalbadaa in ciyaar ku celisa loo sameeyo ama ciyaar kale loo ballamiyo marka wuxuu leeyahay anigu waan guuleystay iyada ayaa hadda qaylinayso waxay rabtaa inaan mar kale la doodo sidaas ay leedahay ayuu leeyahay waxyaabaha kale marka oo TV-ga ABC oo doodan qabtay gaar ahaan wariyaashii su'aalaha u qaybinayay David Muir iyo sidoo kale Lindsay Davis ayaa waxa uu leeyahay Kamala Harris jawaabaha waaba loo sii sheegay oo waa ay ogeed sida sharciga ahna TV-ga dooda diyaarinaya su'aalaha lama wadaagaan musharaxiinta dooda ka qaybgalaya oo tartamaya waxba ma ka oga xitaa wariyaasha nafsad ahaantooda dooda qaybinaya saacada ka hor ayaa loo sii diibaa oo dadka soo diyaariyay ee producerska ay u sii diibaan marka labaduba waa Trump iyo Kamala Harris ma la wadaago labada qofba su'aalaha la weydiin doono sidoo kalena ayagana wax nooda looma ogolayn waa tii la sheego qoraal soo ma qaadan kartaan arrinta kale oo khiyaaliga oo hadda la faafinaya ayaa waxay tahay oo dadka Trump taageersan waxyaabaha khiyaaliga internet ku faafiyo dhagahan aad arkaysaan oo qaaliga ah oo Kamala Harris u xirnaa waxay og yihiin earbuds ama bahalahan dhagaha la gashto oo wax lagu dhageysto marka waxay leeyihiinba qoftan waaba waxyaabahaasi ay wadatayo jawaabaha qof meel kale joogo ayaaba qadka ugu jiray oo u sheegayay jawaabaha marka qoftan qof isku kalsoon ay ahayd oo horay xeraaliye ama toorney u soo ahayd Congress-ka soo mid ahayd hadda madaxweyne ku xigeen ku dhawaad muddo 4 sano marka waxay leeyihiin qoftan qishka waa la siinayaba oo dhagahan fiiriya sidaas ayaaba ay u ahaayeen sameecada dhagaha ugu jiro halkaas ay lagu marka waxyaabaha khiyaaliga oo la faafinayo Trump iyo Kamala Harris shalay waxa ay ku kulmeen magaalada New York mar kale waa 12 saac kadib doodoodii markii ay soo dhamaatay waxa shalay ay ku beegnay 23 guuradii ka soo wareegatay weerarkii argagixiso oo lagu soo qaaday daarihii deedeera ee ku yilay magaalada New York ee Twin Towerska September 11 sanadkii 2001 23 sano ayaa ka soo wareegatay dadkii ayaa la xusayay marka shalay waxa la arkayay markii ay goobta la isugu yimid Trump waxa soo waday Michael Bloomberg nin la yiraahdo horay mayor uga ahaan jiray duqa magaalada New York oo markii hore Republican laakiin hadda Dimuqraadi isku bedelay marka Trump inuu soo waday oo Kamala Harris u keenay oo ay gacanta iskaliyeen oo is salaameen marka
waa markii labaad oo 12 saac gudahooda islaameen dood markii bilaabanaysa waa tii Kamala Harris u tagtay oo gacanta u taagtay oo isku sheegtay waxa la leeyahay sababta ay magaceeda aan Kamala Harris ay u tiri waxay ahayd Trump waa aragtay marka ololaha doorashada uu sameeyo magaceeda waa uu qaldaa sida uu rabo ayuu ugu dhawaaqaa marka iska baro magaciigu waa Kamala Harris darteed salaanta ugu taagtay oo isugu sheegtay isaguna wuxuu yiri thank you have a fun marka Michael Bloomberg ayaa isku keenay way is salaameen marka Trump waxa uu ku yiri nice job ayaad qabatay shaqo fiican ayaad qabatay marka macnaheedu waxa ay tahay doodii xalay aan aniga iyo adigu yeelano markii shalay wada kulmeen New York macnaha si fiican aad u dooday inuu qiranayo macnaha in ay ka guuleysatay laakiin iyadana waxay ku tiri thank you kaliya waa mahadsantahay marka meeshaas waxa la leeyahay Trump nice job masha xalay ay soo wada kulmeen ay soo wada doodeen labadan qof waliba markan isaga ayaa salaanta ninkan oo Michael Bloomberg ayaa waday oo isaga ayaa salaanta la doontay waliba Biden ayaa ka sukeeyay Biden iyo asaga ma aysan wada hadlin salaana ma aysan qaadan sida sawirka aad ka arkaysaan Biden xoogaa qosol aad u mareyso inuu iska keenayo ayuu qoslayaa ninkii Biden ahaa marka Biden iyo asagoo 27 June markii doodii uu Trump uga adkaaday kadib ma aysan wada hadlin waa kii dhowr jeerna weeraray xitaa doodii habeen hore ku weeraray marka waxa la leeyahay nice job ayuu yiri shaqo fiican ayaad qabatay macnaha Trump doodii in looga adkaaday macnaha uu qiranayo warbaahinadiina wuxuu ka leeyahay aniga ayaa adkaaday oo waxay dalbanaysaa in dood kale ku celis aan u sameeyo marka halkaasina waa ay ku wada kulmeen sida sawirka aad ka aragtay dhinaca ugu horeeya waxa jooga Jack Schumer oo dhinaca midig ah oo gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Kamala Harris ayaa ku xigtay Biden ayaa ku xigay sidoo kalena Michael Bloomberg dhinaca kalena waxa sidoo kale ku jira Trump ku-xigeenkiisa Mike Pence ayaa dhinaca bidix jira marka sidaas ayay u safnaayeen Biden iyo asaga ma aysan salaamin mana aysan wada hadlin markii ay meesha ka soo tageen kadib ayaa taageero Trump waxa uu Biden u dhiibay koofida ay ku qoran tahay Trump iyo MAGA oo Make America Great Again marka si fan ah ayuu u gashtay oo sawir looga qaaday sida sawirka aad ka aragtaan Biden koofidii Trump isagoo taageeraha markuu u dhiibay ka qaatay doorashada marka 53 maalmood ayaa maanta ka harsan marka waxa la shaaciyay doodii dadka daawaday dood aad loo sugayay ay ahayd oo mid waliba mowqifkiisa dad badan oo go'aan aan ka gaarin cid ay codkooda siin doonaan iyo kuwa madax banaan ay doonayeen bal inay arkaan musharaxiinta waxa ay soo bandhigaan hadii mowqifkooda ay wax ka bedeli karaan iyo hadii kale sidoo kale waxa la shaaciyay doodii habeen hore dadka daawaday oo telefishinada ka daawaday dooda dadka daawaday waxa ay gaareen 67.1 milyan oo qof ay gaareen ilaa iyo 17 telefishin oo kala duwan ayaana laga sii daayay doodaasi waxa ay 16 milyan ka badan tahay dadka daawaday doodii 27 bishii 6 ee June ee Atlanta Georgia ay ku wada yeesheen Donald Trump iyo Biden taasi oo markii Biden laga adkaaday sababtay inuu tartanka doorashada isaga haro 16 milyan ay ka badan tahay doodaasi Biden iyo Trump waxa daawaday 51.3 milyan oo qof ayaa daawatay marka tanna 67.1 milyan oo qof ayaa daawatay 17 telefishin oo kala duwan oo laga sii daayay marka 35 doodood oo madaxtinimo oo telefishinada Mareykanka laga sii daayay ilaa sanadkii 1960kii iyo sidoo kalena 68 ilaa 72 dadka average-ka celcelis ahaan dadka daawanaya 59.1 milyan ayay ahaayeen laakiin dooda habeen hore labada doodood ee ka badnaa sanadihii u dambeeyay waxay ahayn doodii Trump iyo Hillary Clinton oo yeesheen sanadkii 2016 oo ay daawadeen 84 milyan iyo tii Biden iyo Trump ay yeesheen sanadkii 2020 oo 68.5 milyan ay daawadeen marka labadaas doodood ayaa ka badnayd tii habeen hore si aad ah loo daawanay labada musharax marka ololahooda doorashada ay dib ugu laabanayaan Trump waxa uu maanta ka ololeyn doonaa Tucson Arizona oo xadka ku taala dhinaca Mexico California ayaa ugu xigtay kadibna Las Vegas ayuu ku soo gabagabeynaya sidoo kalena Tim Walz iyo Kamala Harris ololahooda doorashada ay dib ugu laabanayaan Kamala Harris maanta oo Khamiis waxay ka ololeynaysaa North Carolina jimcaha oo berina Pennsylvania ay dib ugu laabanaysaa Tim Walz waxa uu isaguna maanta oo Khamiis ka ololeynaya Michigan jimcahana waxa uu ka ololeyn doonaa gobolka Wisconsin sidoo kalena hadii aan eego Taylor Swift taageeradii habeen hore dooda markay dhamaatay ee Kamala Harris iyo Tim Walz ay taageertay waxa ku xiran haweeneydan fanaanada caanka 284 milyan ayaa barteeda Instagram kuga xiran waatii qoraalka soo dhigtay oo tiri baaritaankiga ayaan sameeyay doodii waa aan daawaday go'aan waxa ku gaaray Kamala Harris iyo Tim Walz inaan taageero laba bilood ka hor jaamacadda Harvard baaritaan ay sameysay waxay ku ogaatay musharaxiinta markay dadka caanka ah ama fanaaniin ama actoro waxay rabaan ha ahaadaan ay taageeraan in ay halkaasi ka helaan
codad dheeraad ah oo codbixintooda amaba dhibcahooda ay kor u kacaan. markii ay qoraalkaas soo gelisay Taylor Swift habeen hore markii doodu ay dhamaatay, qaybta linkiga markii ay Taylor Swift magaceeda oo Giles Cat Lady ay saxiix uga dhigtay, waxay leedahay anigu waxaan ahay haweeney bisado ama mukulaal leh oo aan ilmo lahayn. Trump iyo waxa lagu durayaa ninkii JD Vance oo hadalkaasi keenay. kadib linkiga website-ka la iska diiwaan gelinayo dadka oo doonaya codkooda inay dhiibtaan ayay linkiga hoos soo gelisay. marka waxaa la leeyahay shalay 2 duhurnimo dadka daawaday linkigaasi oo iska diiwaan geliyay amaba kili gareeyay linkigii oo ahaa vote.gov oo dadka doonaya codkooda inay dhiibtaan in iska diiwaan geliyay, maadaama dadka ku xiran gabadhan fanaanada ay dad dhalinyaro oo hadda qaan gaaro 18 ilaa 30 u dhaxeeya ay yihiin. waxaa la leeyahay shalay 337,826 qof ayaa booqatay. marka waa dad aad u fara badan. intaasoo qof hadday isdiiwaan geliyaan oo ay dimuqraadiyiin ay u codeeyaan, waa dad fara badan oo kusoo biiray, weliba dhibcaheedana kor ayay u kici doonaan. marka arrintaasina waxaa la leeyahay aad ayay u taageeraysaa Kamala Harris, maadaama haweeneydan fanaanada caanka ay taageertay. Trumpna waxa uu yiri anigu markii horeba taageero uma ahayn. marka waxa uu egyahay nin markii weliba bishii hore ay jirto markii sawiro AI lagu sameeyay oo haweeney fanaanadaha Trump iyo maaga gashan oo la soo geliyay oo uu yiri Taylor Swift taageerayaasheeda ayaan nahay oo Trumpna la taageerayna, oo isaguna bartiisa True Social waxa uu ku soo qoray I accepted arrintaasi oo markii dambe Taylor Swift ay beenisay. marka Trump waa uu doonayay taageerada Taylor Swift, laakiin 2020kiina Biden ayay taageertay, haddana Kamala Harris iyo Tim Walz ayay taageertay. arrintaasina wax weyn ayay u tari doontaa sidoo kalena Kamala Harris iyo waliba Tim Walz. marka aad iyo aad u mahadsantiin. arrimahaas ayaan rabay inaan idin la socodsiiyo. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.